jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan dalka Koonfur Afrika ee magaalada Johannesburg ayaa si kulul uga hadlay qaraxii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un, inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un, inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un. Waxaan ka tacsiyadeynayaa masiibadii shalay oo Jimcaha ka dhacday xeebta Liido, midaas oo ayaan dara aad u weyn in dalkeenni hooyo dhalinyaradeenni haweenkeenni odayaasheenni cuqaasheenni ay maalin walba u leedaan si micna dara waxaan cambaareen weyn u jeedinayaa intii falkaas wuxuusnimada ka dambeysay oo ficilkaas arxan darrada ummadeena kula kacday. waxaan rabaa inaan dawladda Soomaaliya baaq u diro, baaqaasoo in jiljilicooda iyo asxaan falkooda ay sidaan ay ku dhacdo. ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay dawladda Soomaaliya la shaqeyso, dawladuna ay waxaan naga soo afjarto wixii meeshaas ka dhacay. waan cambaareynaa hadaan qurba joogta Soomaaliyeed wax aad looga fiican yahay loogana wanaagsan yahay ahayd in ummad islaam sidaas loola dhaqmo. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un, inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un. waxa u tacsiinayna dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan qoysaskii iyo qaraabadii ay ka baxeen dhalinyaradii sida xaq darrada xal loogu xasuuqay xeebta Liido. waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala intii dhimantay samir iimaan Allah naga siiyo, inta dhaawacana si degdeg Allah nagu caafiyo. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un. ma inta tacsiyeteeraan yalaan ku diray shacabka Soomaaliyeed meelolbi iyo rogan falkii xalay ku dhii oo argagax lahaay Soomaali meelolbi iyo roogti argagax geli iyo eedun ku xunna hadeena aan shacabka ka dhaqan jaaliyadda Soomaaliyeed. lillahi wa inna raaji'un. waxaan halkan ugu tacsiyeenayaa Soomaali weyn meel walba dal iyo dibadda ay joogaan. waxaan ka tacsiyeenayaa walaalaha xalay qaraxa ku dhintay inuu Ilaahay u naxariisto, intii dhaawac ku noqotay inuu Ilaahay u bogdayo. qaraxii xalay ka dhacay Liido waa arin aad u foolxun leh ee wadankeeni in badan ku soo laabatay. waxaan u tacsiyeenayaa waalidkii, walaalihii, dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dhammaan walba ay joogaan. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un. inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma falnasbir wa nahtasib. dhammaan muslimiinta meel kasta oo roogan wayba ta'siin diraana dadkii oo muslimiinta hayan oo ka dhimka baabaan ka geeriyoodan magaalada Muqdisho qaraxii ka dhiyay mayba lana anta dhimati Ilaahay naxariisa. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un. waxaan u tacsiinayna dadka meesha ku dhintay aad iyo aad ugu xunnahay. marka masiibadan Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ummadda Ilaahay dhinac u dhaafiyo. marka maalin walbana dhibtaas dhib ka darnaa dhacdo. marka waxa la yaab leh dawladda Soomaaliya waxaan ugu digayaa dadkan xalan la degan oo mar walba markuu qarax dhici rabo oo ka hadlo oo dhaho qarax baa dhacay reer mana dadkooda inay cishtaan. hadday ogimay macnaha hay'adaha amniga may u sheegaan oo meesha wax ka soo sheegaan markii intay wax dhicin ay sheegayaan. markii wax dhacaana wax dabagalay iyo dadkaas wax sheegay ama raadiya laga hadlay ama media ama qof ka hadlay in wax la rabaa in la weydiiyo. dhanka kale safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Koonfur Afrika Ambassador Maxamed Sheekh Isaaq ayaa cambaareeyay weerarkii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho. waxa uu ku bilaabay sidatan: erayo aan ku cabiro ma aqaano, laakiin waxaan leeyahay Ilaahay u naxariiso intii ku dhimatay xasuuqii xalay ka dhacay xeebta Liido, intii ku dhaawacantayna Ilaahay ha caafiyo. shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay hub ka qaataan oo ay arxaan laawayaasha xasuuqa geysta maalin walbo iska celiyaan, ilaan mar walba way dhiman lahaayeen. si sharaf leh ha ku dhintaan, dawladoodana ha garab istaagaan. Cabdirashiid Xuseen Karaash, warbaahinta Koonfur Galbeed Soomaaliya, magaalada Johannesburg.